maamulaha shirkadaha Dahabshiil Group Cabdirashiid Ducaale ayaa ardayda jaamacadda Camuud waxa uu kala qayb galay munaasabadda qalin jabintooda oo noqonaysa dufcaddii 22aad. maamulaha ayaa ardayda ku dhiirigeliyay hal-abuurka ganacsiga iyo xoojinta nabadda waxana uu yiri aad baan u arkay in nasiib badan ahayd kala soo qayb qaato xafladana idinku leedihiin ee maanta ah ka ku graduate garayseen taasoo ku dhalatay tacab geliseen oo maalin iyo habeen baad ka shaqaynayseen inaad graduate garaysaan ilaahay digriga ay ka dhigo digri khayr qaba mid aad ku guulaysataan mid aqalka iyo aqoonta iyo cid walba sii kordhiya waalidkiida dhalay ee halka ku faraxsan la'aantood aydan digriyada maanta qaateen aan idin suurtagal ilaahay ka sugno iyagana saas leeg weyn waxaan baryeynaa in uu ajar ka siiyo dadaalka ay sameeyeen ay aad faa'iidadeedii aad wax ku tari doontaan waalidkiina tacliintu way ognahay qiimaha ay leedahay ama jaamacaduhu anoo markii aan yaraa jaamacad waddanka way jirin idinku nasiib u yeelateen inaad waddankiina jaamacada ku barataan oo aad ka heshaan waydan u baahnay inaad qurbaha qabataan waxaa soo kale jira degree qayb ka yahay horumarka laakiin ma aha midka ka dhigaya complete degree baan qaatay macnaheedu ma aha shaqaad helaysaa markiiba ma aha shaqaad samaysan kartaa markiiba noloshu horey u sii soconaysaa oo dadaalka halkaa inaad ka sii wadaan ayaan kula talinaya degree iyo degree la'aanba noloshu waxay ku xidhan tahay dadaal iyo tacab waxaan kaloo doonayaa ardaydii aan digriga qaadan in aanay niyad jabin dad badan baa jiro adduunka digri qaadan oo guulaystay haddana macnaheedu ma aha digri baad weyday dadka kale ka aqoon badan ama ka maskax badan digrigu waa qayb ka mid ah sida baasaboorka loo qaato oo kale marka dadkaasina waxaan kula talinayaa niyad jabina haddaad tacliin doonaysaan sii wata haddaad shaqo abuuraysaan abuura haddaad shaqo raadsanaysaan raadsada waxaan doonayaa inaan ardayda maanta graduate garaysay iyo cidiina daawanaysaba aan xusuusiyo ama dhammaanteen is xusuusino qayb waxaa ka qaadatay digriyada qaataan nabadda haddaanay nabadi jirin tacliin ma jirto haddaan nabadi jirin digrii ma jiro haddaan nabadi jirin ganacsi ma jiro haddaan nabadi jirin horumari ma jirto mustaqbalku waa nabadda ha laga wada shaqeeyo meel walba nabadda meel gaara maaha gobol walba dhul walba qof walba mas-uuliyad gaara baa saaran siduu nabadda ay meel walba uga heli lahayn qofkii nabaddiida waa qof mustaqbalka doonaya u burburiyo qofkii nabaddiida waa qof mustaqbalkiina baabinaya asalaamu calaykum waxaa isna shirkadaha Dahabshiil Group ku amaanay taageerada joogtada ah ee jaamacadaha siiso Professor Saleebaan gudoomiyihii hore ee jaamacadda Camuud waxaase aan aad iyo aad ugu mahadcelinayaa maanta wiilnawar fadhiyo Cabdirashiid Maxamed Saciid Ducaale shirkadda Dahabshiil oo ilaa imika ah deeq bixiyaha ama qaaraan bixiya ilaahay baa deeq bixiye ugu ballaaran ee Soomaaliland laga bixiyo ee jaamacadda siiyay siiyay waan garanayaa oo maalintii jaamacadda la furayay wax lacagoon haynaa ma jirin Soomaaliland halkan ay waratay maalintii la furayay madaxweynihii markaa joogay Allah u naxariistay Maxamed Xaaji Ibrahim Cigaal baanu tagnayo waanu jaamacaddii baanu furaynaa nagala soo qaybka madaxweyne waxaan xanuunsanayaa waa week toddobaadka oo halka xunba hayay wuxuu yiri waan xanuunsanayaa waxa idin furi doona madaxweyne ku-xigeenka oo daahir riyaal ah iyo baarlamanku isna wixii baarlaman oo haday session bay ku jireen waa la joojiyay baa la yiri tagaa la yiri golihii wasiiradii in hawlku maqan mooy cid kale maalinta ka maqnayn taqriiban ilaa 1000 qof ayaa ka soo qayb galay wax alla waxaan haynayna ma jirin argaysaan tagayo kaalarkii baan qaybinayay waxaan u tagay Maxamed Saciid Ducaale waa Dahabshiil markaa waan casuumaday kaarkaasaan ku siin maxay tahay wasiir waa jaamacad Camuud ka furayna miyaad haysataan waxaad ku qabsataan maasaani waan u sheegay ma xoogay xoolaana waan haynaa shan boqol kale waan haynaa
berigaa lacagtu qiimay lahayd inan buu yeeluu $2,000 u qoray marka soo siyaasada kaashka soo siiya oo lacagtu way badnaydintii way qaadan wadaceli dhul bay qaadan weyday weliba waxay ugu daray lacagtaana waad qaadan doontaan ilaa jaamacadda intay jirta waad qaadan doontaa haddii alla yidhaahdo marka waa dahabshiil sharikadu maalintaa ilaa maalinta aqalkan aan ku jirno wuxuu ahaan jiray shaybaadh yar shaybaadh buu ahaan jiray dheer sidaa u dheeroo halkaa ku jooga gebigiisaba dib baan u duminay aqalkan shay muddo laga joogay imaka 8 sano ayaan dib u duminay lacagtii lagu dhisay dahabshiil baa bixiyey waxaa kaloo uu siiyey hadhow tamarka shahaadooyinku inuu sheegi server bahal weyn oo lagu keydiyo oo u ah server engineerinka iyo IT-da labadaba ayuu la siiyo qiimihiisa imaka 800 oo ku badan yahay halkan noo yaal oo shaqeeya oo la rakibay imaka la shaqeeyay baa iska u siiyey wuxuuna siiyey waxaa kaloo ka qayb galay sidaad u arkayseen ama saakaba la furayay kulliyadda caafimaadka ayaa hooygii labaad loo dhisay oo cambaskii hore mid ku dhow runtii la dhisay lacagtan of course deeqdi waa gooni deeqdi way fara badan yihiin laakiin dayn ahaan aan uga qaadanay markaan codsigaa samaynay intii aan joogay bay ahayd uu noo fududeeyey markii baashii lasoo process gareeyey baan xilkan wajah doctor maxamed dhismi uu ku bilaabay marka aad iyo aad baan uga mahad celinaynaa daynkiina waad arkayseen lacagtii ugu deeqay oo shahaado lagu siin doono insha allah guddoomiye ku dhawaaqi doono